Maalin maalimaha ka mid ah, Cumar gurigii ayuu ku soo laabtay isagoo xanaaqsan. Hooyadii oo madbaxa joogta ayuu ugu soo galay, waxaanu ku yidhi, hooyo, mar dambe saaxiibkay Axmed lama ciyaarayo, mana tegaayo gurigooda mar dambe. Hooyadii waxay tidhi, hooyo maxaa dhacay? Cumar wuxuu bilaabay inuu uga sheekeeyo hooyadii wixii dhacay. Cumar wuxuu tegay gurigii Axmed isagoo rabay inuu soo booqdo lana soo ciyaaro. Cumar markuu gurigii Axmed yimi wuu iska soo galay, waayo albaabku wuu furnaa. Gudihii markuu soo galayna wuu dhawaaqay isagoo cod dheer ku leh, Axmed kumee, soo baxaynu ciyaarnee. Axmed hooyadii ayaa maqashay, way soo baxday. Waxay ku tidhi, Cumar, sidee guriga u soo gashay? Wuxuu yidhi, albaabka ayaa furnaa, saasaanu soo galay. Laakiin albaabka Cumarow, inaad soo garaacdid ayay ahayd. Waxay kaloo ku tiri hooyadii Axmed, Cumar yare, Cumarow, inaad iska soo gashid guryaha dadka iyagoon kuu idmin, oon kuu ogolaanin, adigoon soo tubin, waa eedaab aan fiicnayn. Baro inaad tuntid albaabka intaad soo gelin guriga. Cumar wuxuu yidhi, anigu waxaan rabay inaan la ciyaaro Axmed. Waxay ku tiri hooyadii Axmed wax buu dhiganayaa, u kaalay maalin kale saa ula ciyaartid. Markaa Cumar wuu baxay oo gurigoodii ayuu tegay. Cumar markii ay hooyadii maqashay qisadii ku soo dhacday ee uu la xanaaqsanaa, waxay ku tiri Cumarow, hooyo qalad ayaa samaysay, waa inaan ku dhaqanno akhlaaqda wanaagsan. Cumar wuxuu yidhi, waa maxay hooyo akhlaaqda wanaagsan? Hooyadii waxay tiri, waa inaa marka hore intaynan dadka u tegin telefoonka ka wacdid si aa u ogaatid inay waqti hayaan iyo in kale. Marka labaad markaa u tegtidna waa ina guriga ku tuntid ama jalaska u garaacdid si lagaaga furo. 3 jeer haddii ay garaacdo oo lagaa furi waayana waa ina ka soo laabatid oo gurigaaga timaadid. Midda saddexaadna hooyo Cumarow ayay ku tiri, marka guriga lagaa furo waa inaad salaantid dadka. Marka aad salaantid ee gudaha gashidna gurigoo dhan ha dhex cararin. Meesha lagugu ogol yahay inaad ka fadhiisatid guriga waa ina halkaa ku eegaatid oo fadhiisatid. Maaha inaad gurigoo dhan dhex carartid ama meel kasta ka qaylisid. Ilaahayna qur'aankiisa ayuu inoogu sheegay aayadan. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Cumarow hooyo, aayadan waxay ina baraysaa in aynaanu gelin guryo aan guryaheenna ahayn. Guryaha dadka markaynu joogno waa inaynu weydiisano dadka guryaha iska leh inaynu soo geli karno gurigooda. Haddii ay inoo diidaan dhahaan iska laabta ama aynu weyno cidina maqasho oo albaabka naga furta, waa inaynu ka laabanno guryihii dadka oo bilaa idan aynaan ku gelin. Cumarna hooyadii wuxuu ku yidhi, hooyo waa mahadsan tahay, maanta waxaan bartay eedaab aad iyo aad u qurux badan una wanaagsan. Telefoonka ayaan ka wacayaa saaxiibkay Axmed, hooyadiina waan raali gelinayaa. Mar dambana ma samayn doono sidaas, oo haddaan cid u tagaayo telefoonka ayaan ka sii wacayaa, ama gurigooda ma gelaayo ee waan tumayaa oo albaabka ayaan gargaraacayaa ama jalaska ayaan ku garaacayaa. Cumar yare hooyadiina way faraxday, waana u mahadcelisay iyadoo ku leh, axsant wiilkaygii fariidka ahaa ee caqliga badnaayow, Allaha ku xafido. Masha Allah caruurey, fariido Allahumma barik.